Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ku soo dhowaada channel-keena xirfad wadaag. Maanta waxaynu qaadan doonaa poster design-kan oo aynu ku diyaarin doono software-ka Adobe Illustrator. Haddii ay tahay markii koowaad ee soo booqato channel-ka, fadlan subscribe saar, muuqaalkana like gare si uu dad badan u gaadho. Si aynu u sameyno, waxaan tegi doonaa ugu horreyn file, kadib waxaan leenahay new file, kadib waxaan soo dooran doonaa cabir square ah oo unit-ka maalbeegiisuna yahay pixel. Kadib halkana kuma gashan doontaa qaybta width-ga, qaybta height-kana waxaa gashan doontaa kun. qaybta orientation markaa wuxuu ku noqon doonaa si taagtaaga. Haddaa xataa ka dhigato portrait amba jiif haddaa ka dhigato landscape-kana wuu ku shaqeyn doonaa waa isla halkii. Kadib qaybta color marka waxaan kasoo dhigan doonaa RGB color maadaama hadda wax mashiin gelaya uuna daabacayn uu yahay. Kadib waxaan leenahay RGB color, kadib waxaan leenahay saa uu yahay baan leenahay create. Gudaha marka saa inoo keeno, ugu horreyn waxaa soo diyaarsan doontaa waxaa la yaqaano background inaad diyaarsato. qodobka labaad ee aad u baahan tahay waxaa la yaqaano color brand oo ah loogada aad haysato inaad colorkeeda aad qaadato markaa. Marka loogadana waan soo gashan doonaa. Waxaan tegi doonaa ugu horreyn control shift plus p intaas isla qaban doonaa si aan usoo place gareyno loogada abaynu soo gashanno artboard-keena. kadib loogadeena halkii taalay ayaan soo daydayan doonaa waatan. kadib waxaan leenahay place baan leenahay. intaa markaynu sameyno halka mikaani marka kadib waxaan sameyn doonaa shift altaas la qaban doonaa si aan hal mar u wada yareyn karo. waayo waxaan doonayaa branding-ka inaan ka tixraaco halkan oon u isticmaalo waxa la yaqaano color guide. waxaan tegi doonaa halkan kadib waxaan leenahay markaa qaybta preview-ga waxaan tegi doonaa view kadib trim view-ga inta ka qaadi doonaa. waxaan soo qaadan doonaa sawirkan iyo background-ga oo wada socda markaa halkan ma keensanaynaa. kadib waxaan sameyn doonaa background-ga ayaan leenahay qaybta control baan halkan tegi doonaa. kadib waxaan leenahay qaybta alignment-ga horizontal dhig baan leenahay. halkana soo kale waxaan leenahay centerka dhig baan leenahay. kadib waxaan sameyn doonaa shift baan altan qabanaynaa kadib waan ku ballaarinaynaa si uu isku leekaado. halkana saasho la mid ah shift ma altan qabanaynaa kadib waan leekaysiinaynaa. haddaba shaqadan qaban doonaa waxaan tegi doonaa qaybta opacity-ga si aan u yareyno ama u dhibi karno opacity-ga. marka waan yareyn doonaa opacity-gana intaasi oo kale. kadib log basa gelinaa control plus 2 waad leedahay si uu log kaaga galo uuna mar dambe kaaga dhaqdhaqaaqin. sawirkan soo qaadan doonaa marka halkan oo kale ayaan keensanayaa marka halkan oo kale ayaan keensanaynaa taasi oo kale intaasi oo kale. kadib soo qaadan doonaa ugu horreyn shape baan soo qaadanaynaa. shape baan intaas sawirka ilaa intaa inta ugu jiidaya marka intaasi oo kale. kadib waxaan ka dhigan doonaa labada color ee mainkayno ah amba cagaar amba casaan. casaan baan ka dhigan. kadib haddaad doonto waxaad soo qaadan kartaa labada color brand ee banaanka ku yaala ee aanu bartan kusoo diyaarsaday. color code-koodana waad ogaan kartaa si fudud weliba mid ka mid aad ku dhufan doontaa. kadib waxaad tegi doontaa qaybta loo yaqaano tool panel-ka kadib double click baad siin doontaa qaybta loo yaqaano fill color-ka. marka color code-ku halkaasi ku yaala waad gashan kartaa marka haddaad lacala aad u baahato. marka waxaan sameyn doonaa ugu horreyn text baan soo qaadan doonaa qoraal. qoraal baan soo qaadan doonaa. qoraalka ma soo qaato halkan baan keensanayaa. kadib waxaan leenahay soo zoom gare waxaan leenahay February. kadib waxaan leenahay February online class intaan markaa sameyno size-ka dhex mudayna aad u yartay. kadib shift altaas la qabo kadib soo weynee saa markaan sameyno markaa font-ka waan iska bedeli doonaa mid kale loo yaqaano assimilatis oo kala soo degi doonto internet-ka amba google-ka ayaan isticmaali doonaa anigu. kadib kana iska isticmaalaya. kadib branding-gana waan fajinaynaa cagaar baan ka dhigi. good cagaarka laakiin saaka kaga qurux badan. kadib waxaan leenahay February-da waan weyneyn doonaa. intan waxaan leenahay markaa laba paragraph aan kala dhigi doonaa. kadib waxaan leenahay halkan interne daa sameyn doonaa. intaan markaa sameyno waxaan soo jiidi doonaa halkan baan keensanaynaa marka. kadib waxaan tegi doonaa qaybta paragraph. kadib waxaan leenahay centerka isku aadi isku adjustment gare si ay centerka wada fadhiistaan. kadib halkaas oo kale ayaan leenahay centerka keena. intaan markaa sameyno waan kala qaadi doonaa oo laba qaybood baan ka kala dhigi doonaa. kadib intan kale taa soo weyneyn doonaa. intaa markaynu sameyno loogadeena xirfad wadaag halkan baan keensan doonaa. si ay nagu noqoto guidance amba meelaha space-ka nagu banaanaan doona si ay inooga xidho. way kadib waxaan sameyn doonaa waxaan soo qaadan doonaa ugu horreyn shape baan soo qaadan doonaa. kadib shape-ka waxaan keensan doonaa halkan oo kale aan keeni doonaa. saasoo kale nagu soo jiidi doonaa markaa. kadib waxaan sameyn doonaa sawirka iyo shape-ka kale xagga sare ka soo marin doonaa. labada shape-kan casaanka ee hooste ee loo isticmaalay footer-ka iyo sawirka isla highlight garay. kadib waxaan leenahay right click kadib waxaan leenahay orange kadib waxaan leenahay bring to front si ay xagga sare u soo maraan. kadib waxaan moodaa shape-ka inuu yar dhaafayo waan soo celin markaa waxyaa saas lisan agdaad baan leenahay. marka waxaan gelin doonaa kulli waan saarkanaa. kadib waxaan sameynaynaa
text kala soo qaadan doonaa halkan baan keensanaynaa markaa kadib waxaan soo dhigan doonaa barta caddaan baan kasoo dhigananaa maadaamuu backgroundguna caddaan inoo yahay laba kalar main aynu haysano oo ah cagaar iyo casaan saas bay samayn doonaa markaa caddaan baan kusoo darsanaya hal kalar caddaana hale caddaan kusoo darso kadib waxaan samayn doonaa waxaan samayn doonaa marka waan soo weynaynaa sizekeeda marka waxaan ku qori doonaa koorsooyinka magacooda maadaama imika laba koorsooyin hadda micnaha diyaar ah oo ah video editing class iyo graphic design class video editing classka waxaan ka dhigan doonaa Adobe Premiere Pro kan kalena waxaan ka dhigan doonaa waxa loo yaqaano Adobe Illustrator waayo software hadaan isticmaalana waa Adobe Illustrator kadib waxaan samayn doonaa waxaan ku dhufan doonaa qoraalkii kan mudayna aad u yaryar tahay kadib shift man la qaban waan soo weyneyni intaa markaynu sameyno kadib sizeka waan yareyn doonaa sizeka aad baan u yareyn doonaa waynaanu merge gareyn doonaa something like that baan leenahay markaa eg si fiican u fiiri spaceka aad buu noogu banan yahay waxaan kaloon awoodnaa inaan hal baaragraaf ka dhigna intan oo isku darno kadib hal baaragraafna ka dhigi karnaa markaa saas ugu soo dar kadib shapeka u balaadhan yahay waan dhoobi doonaa shapeka si uu leegaado inta hore qoraalka markaa something like that baan leenahay halkaasoo kale noo keen kadib shapekan u balaadhan yahay si uu qoraalka u leegaado kadib waxaan leenahay saas oo kale dhe markaa something like that intaa markaynu sameyno dib baan u saari doonaa kadib halkan waxaan keensan doonaa laba micnaha icon oon dhigi doono Adobe Illustrator class iyo waxaan keeni doonaa Premiere Pro class markaa halkaas ayaan keensan doonaa labada shibna waxaan kasoo dhigan doonaa waxa loo yaqaano cagaar si ay kalaraantu isku soo qurux badnaadaan oo ay wixii isku yara qaabqaata markaa waxaan samayn doonaa ugu horreyn halkan waxaan keensan doonaa ilaa 3 shape baan keensan doonaa kow waxaan ka dhigan doonaa kan kadib waxaan samayn doonaa isla isaga Ctrl+C Ctrl+F dhe kadib waxaad samaysaa kii sare koobi aad ka kicisa yare labadooda isla soo highlight gare waxaad tagtaa qaybta loo yaqaano direct selection toolka kadib waxoogaa round ka soo rodhig intaasi oo kale kadib waxaad samaysaa kii dambe ee koobiga aad ka samaysay filkiisa iyo strogiisa switch ku samee kadib markaad switch garayso aad switch ku sameyso waxaad tagtaa qaybta stroga kadib waxaad kasii tagtaa meel ay ku qoran tahay caps cab waa kan marka kadib ka dhexda ku dhufo ee rounded kadib waxaad tagtaa qaybtan uniform ee stroga la shaqaysa waxaa kasoo dhigan doonaa kan waxaad moodaa waa line dhuuban laakiin lineka dhuuban ma doonayo okay marka saa sameyno you see waxaad aragtaa hadda shapekii dambe stroke ahaa dhanna khafiif ka noqday dhanna fu ka noqday stroke u yeeshay kadib waan isla highlight garayn doonaa labadoodaba kadib waan isla highlight garayn marka altan qaban doonaa hubiga ka kacsanaya waayo waxaan doonaya inaan geliyo durationka iyo waxaan doonaya inaan geliyo daydka uu soconadka koorsadu markaa koorsooyinka intay soconaya kadib hoos baan usoo dhigi doonaa intaa markeed meelahaasoo kale keensanaynaa kadib waxaa leenahay halkan kore qaad intaasi oo kale waxaan keensan doonaa markaa waxa loo yaqaano second paragraph oo ah paragraph kale kadib waxaan ka dhigan doonaa cagaar green baan ka dhigan doonaa same branding isku waafajino intaan markaan idhaahno waxaan soo dooran doonaa font kale kadib fontkan kusoo dooran doonaa waxaan sameynaa markaa inaan halkan keeno ka gelin doonaa ugu horreyn markaa labada koorseed hadda inoo diyaarka waa labadan kan waxaan leenahay graphic designka oo ah waxa loo yaqaano Adobe Illustrator ka qaadan doono softwarekaasi specifyga haddaba labadan oo iska saari doonaa maadaama aynu laba shape oo kale diyaarsanay oo ah kuwan marka kuwan isticmaali doonaa kanan qaadan bartana keensan markaa wayn weyneynayaa kadib kana koobiga ka kacsanaya kadib waxaan leenahay right click kadib waxaan leenahay transform kadib waxaan leenahay reflect automatic markaa isagaa is reflect garayn doona oo iska soo horgeyn doona hadduu ku jiido markaa adaa switch samayn doona qaybta horizontalka iyo qaybta vertical kadib waxaan leenahay okay baan leenahay intaa markaynu sameyno kadib waxaan leenahay labadan group baan gelinaynaa kadib waxaan leenahay walow I think 3 ay yihiin group aan ka saari kadib kan ka reeban leeyahay labada group geli kadib 3 inta soo highlight gare markaa kan sawirkan ka reebi doonaa kadib waxaan leenahay qaybta horizontal align say center spoon noqdaan intaasan doonay kadib waxaan sameynaynaa soo qaadan doonaa lan yaroo dhuuban saasi oo kale amba haddaan doono waxaan awood u leeyahay inaan 3 qaybood ka dhigo mid halkan keeno kadib aan dhahdo colorkiisaan ka dhigo casaan kadib aan dhahdo stroke baan ka doonayaa waayo waxaan doonaynaa
bahala yaro bob abis oo kala ah oo falaadho oo kala ah. Kadib waxaan tegi doonaa stroke mar kale. Kadib waxaan leenahay kasoo dhigo qaybta caps scroll kasoo dhigo. Marka inta kale waan boobsiinanaa marka round kasoo dhigi doonaa. Kadib waxaan tegi doonaa halkay ku qoran tahay width tool oo ah qaybaha toolska ka eegi doontaa. Ka width tool waa kan. Waxaan samayn doonaa marka soo zoom fiican u fiiri. Haddii aan qabto oo aan kor u balaadhiyo u balaadhanaya saasaan doonaya. Kadib qaybtana yaree dhuub qabo kor ha u jiidin hoos u jiid si uu falaadhir u noqdo. Kadib waxaad tiftaa curvature tool. Kadib waxaan leenahay marka la yaro cusub u samee halka saas oo kale that's good. Kadib isla isaga control F dhe copy ka kacsananaa marka isla isaga waxaan sameynaynaa marka waxaad moodaa qaybta stroke inuu aad u badan yahay marka stroke in yar dhimana kadib isaga oo saddex kala ayaan copy ka kacsananaa oo copy ka sameysanaynaa. Kadib control F baan leenahay marka right click baan leenahay transform baan leenahay kadib waxaan leenahay reflect. Shaqada xigta oo ah in qabano inaan kor yar geyno kadib waxaan moodaa rotation inuu aad u badan kadib kor baan yar celinaa yar madaxna uu ku beeganaa soo bob up noqdo oo qofka maskax inay fikrad u helo karo qofku. Kadib isla isaga altan qaban copy baan ka kacsan kadib rotation ma ku sameeyno khiyar something like that waana yareynaya marka shift baan la qaban waan yareyni saas oo kale. Kadib size-kiisa aad u badan waan dhuubaynaa marka walow aan saddexda kalaba dhuubi doono. Kadib waxaan iman doonaa curvature tool halkan dhexda waxaan moodaa inuu xoogo si qaloocan oo taas oo kale leedahay marka kanna waxaan samayn doonaa waan toosinaynaa in yar saas baan leenahay kanna markaa sameyn doonaa inaan saas ku adjust kareyno size-ka markaa aad u yaraaday. Okay marka intaa wixii ka dambeeya shaqooyinka kale ayaan ku socon doonaa oo aan sii wadi doonaa marka waxaan doonaynaa inaan soo qaadano social media icons iyo wax loo yaqaano location iyo wixii la xiriira marka intaana khadkan tegi doonaa kadib bayn la soo degaynaa marka abaaynu samaystanaynaa marka waxaan samayn doonaa iconskina waa diyaar marka haddaad lacag loo baahantay inaad iconskan aad hesho si aad u isticmaali karto waxaad tegi doontaa websiteka loo yaqaano flat icons google-ka tegi kadib waxaad ku qori doontaa hagan googlaha oo website loo yaqaano flaticon.com kaasa markaad kala soo degi doontaa pre icons kuwan aan isticmaalayo oo kale haddaad lacag la isweydiisa weeyaan marka waan ka socon doonaa marka waxaan sameynanaa ugu horreyn waxaan soo qabsan doonaa kan oon ka dhigi doonaa ka koowaad ugu horeeya marka waxaan ku adjustment garin doonaa shayfi ka dambeeya meesha si aan u leekeysiin karno marka caddaan baan ka dhigi doonaa Adobe soo qaadan doonaa kadib waxaan ka dhigan doonaa whites ka maadaama saddex kale aan isticmaalanay caddaan iyo cagaar iyo casaan marka mar kasta oo kalaraantaada aad labo kalar ku dayso waa mar kasta oo dhisaynkaaga ku qurux badnaanaya kadib saa markaan sameyno soo qaadan doonaa waxaan loo yaqaano durationka marka isaga laftiisana waxaan ka dhigan doonaa Adobe kadib white color baan kasoo daaran doonaa kadib size-kan yareyn doonaa marka in yar intaas oo kale ayaan sameyn doonaa micnaha centerka inta markaan sameyno halkan waxaan keensan doonaa Telegram kadib control shift P baan leenahay si aan usoo place gareyno amba inuu soo furano waxa loo yaqaano iconka Telegramka maadaama aan ka isticmaalayo kana soo furan kadib waxaan leenahay place markuu soo furo waxaan sameyn doonaa intaasoo kale saa ugu jiidaynaa si uu backgroundiga uu u lahaado amba uu noogu qaato backgroundiga intuu yahay siskiisu marka halkan uu soo fuulay kadib waxaan leenahay yaree waan adjust gareyn doonaa shift altan qaban kadib waan yareynanaa marka intaas oo kale kadib halkan baan keeni marka isaguna waa inuu caddaan noqdaa laakiin isaga haddaan caddaan ka dhigno loogadii mainka ahayd ayaa ka guureysa kadib horta waxaan diri doonaa image trace baan ku dhufanayaa hal mar waxaan soo furi doonaa qaanadan image trace kadib waxaan leenahay tree color soo dooro kadib waxaan sameyn doonaa si aan backgroundiga u reebi karno stroke caddaan ugu darno waayo stroke caddaanka laga yaabaa inuu qorfiyo marka yara suganaa in yar inta uu ka dhammaynayo processingka image tracingka marka kadib inta kale aan doonayay waxaan sameyn doonaa waxaan tegi doonaa expand gareynay waxaan tegi doonaa waxa loo yaqaano magic wand tool kadib background caddaan ku dhufana kadib delete maan leenahay waan delete gareynaynaa intaa markaan sameyno stroke caddaan kasoo dari doonaa waxaan soo furi doonaa qaybta stroke width-ga amba stroke size-ka kadib waxaan kasoo dhiganaa caddaan
so stroke cadaan u yeesho kadib waxaan leenahay size-ka soo badi intaasi oo kale hadda waa good way igu filan tahay kadib markaa size-kiisa ayaan merge gareyn doonaa oo centerkan ku beegaynaa marka intaasi oo kale bas intaa wixii ka dambeeya markaa waynu okay waxaad moodaa inuu iga raacay inuu cadaanka iga raacay maadaama aan isticmaalay magic wand tool kadib groupka magic wand tool isticmaali maayo maadaama qaar kaloo cadaan ah meesha ii yaalaan kadib waan kala reebi doonaa an group baan leeyahay kadib backgroundka cadaanka ka saari doonaa intalo khaasaan qaadan doonaa marka kadib waxaan tegi doonaa stroke mar kale kadib waxaan kasoo dhigan doonaa white ama cadaan ma kasoo dhigan doonaa marka stroke okay good weye kadib waxaan leenahay size-ka soo beeri kadib size-ka yareyn doonaa marka size-ka ayaan yareyn doonaa shift waan la qaban kadib waxaan leenahay size-ka inaga yare intaas oo kale kadib waxaan leenahay marka hadda waa caadi oo kuwaa kani waa noo diyaar kadib qoraalka hoose cagaarkaa soo qabsan doonaa hal mar waa soo qabsan doonaa halkaas oo kale ayaan keenaynaa marka durationka uu socon doono hawayaan waa hal bil weeyaan waa 1 month oo waxa loo yaqaano 1 month kadib waxaan leenahay the first word capital ka dhig inta kalena waxaan leenahay small letters ka dhig marka saas samayn doonaa halkaasaan keenaynaa marka fontiga waan bedeli doonaa waxaan kasoo dhigan doonaa fontigii assimilateskan isticmaalayni kadib size-kaan moodaa inuu aad u yaryahay markaa size-kan soo beerinaynaa waan soo weyneynanaa marka waxaan moodaa inuu wix yar rotate garaysan yahay okay good kadib samayn doonaa halkaasoo kale keenaynaa kadib isna altaan qaban doonaa halkan baan keensanaynaa marka date-ka bilaamayaana hooyaan February 7-keeda marka xagga waan kasoo dhigan doonaa February waxaan leenahay halkan halkaasoo kale keen marka size-ka waan yaryareyn doonaa ha ka warwarin marka waxaan leenahay halkan oo kale keen waanaan isku merge gareyn doonaa oo waan isku habayn doonaa halkan oo kale keen kadib waxaan samayn doonaa mar kale inaan copy ka kacsano kadib waxaan samayn doonaa intaan isla soo wada select gareeyo gidi saddexdan qoraal ee meesha noo yaalaba inaan imaado qaybta alignmentiga kadib aan idhaahdo isku meel leftiga ka soo wada bilow hal meel ka wada bilow maadaama kale paragraph yihiin haddaan idhaahdo paragraphka soo dooro isku meel ka bilaabi maayo intii isku mida ee wada socoto unbuu isku meel ka bilaabay intaas oo kale kadib casaan baan ka dhigi doonaa soo qaadan doonaa eyedropper toolka kadib waxaan leenahay casaan ka dhig something like that kadib waxaan samayn doonaa qaybtan I think centerkii weli maaha kanoo kale waa okay kana hoos baan yar u dhigi kana waxaad moodaa inuu in yar u baahiyey kor loo dalo hadda waan dhamaynay kadib waxaan soo qaadan doonaa iconskan Premiere Pro iyo waxaan soo qaadan doonaa waxaa la yaqaano Adobe Illustrator kadib kana soo qaadan doonaa marka saa haddaad untoos kaga diisan kartaa haddii uu kula qurux badnaan waayo gawshan bularka inay board ku furto shape-kaaga kadib halkan kalaan keensanaynaa kadib waxaan leenahay soo yaro weynay something like that waxaan leenahay ku adjust garee kadib okay waan leenahay hadda saasaan ku diyaarsanay shaqada ugu dambeysa ee qaban doonaa waxa weeyaan waxaa loo yaqaano inaan ku darno addresskii meelihii aad nagala soo xiriirsay marka koriska aad u baahato la bilaabo ama la gaadho okay soo dooran doonaa qoraalka cadaanka kadib eyedropper toolna keen kadib cadaankaas ku dhufanaynaa kadib waxaan leenahay halka waxaan keenaynaa website-keena oo ah xirfadwadaag.com kadib halkan baan gashan doonaa kadib marka saa u gashanno waxaad awoodaa inaad ku darto icon loo yaqaano iconkeen hore usoo aragnay flat icons aan kala soo degi karno markaanu hadda wax kuma darayo iconisa kadib waxaan leenahay dib waa soo bax markaa ugu dambeyn shaqada ugu dambeysan qaban doonaa qoyaan background-ga waxaad moodaa size-kiisa inaan aad micnaha u khafiifiyey qaybta opacity-ga marka inaynu ku jirin baan u malaynaya tin kadib background soo qaadan doonaa si u yaro qurux badnaado design-ku kadib waxaan keensanaynaa halkan waxaan leenahay halkan kusoo adjust garee qaybtana waan leekeysiinaynaa artboardka leekeysiinaynaa halkana waxaan leenahay soo leekeysiya artboard kadib waxaan leenahay control shift color bracketska ayaan ku dhufanaa hal mar kadib waxaan leenahay opacity-ga ayaan aad u khafiifin doonaa si uu u noqdo low opacity oo background-ga cadaanka aan looga dareemin shaqada markaa sidaasay ku dhan tahay 100% marka kala xagaar inagu joogto asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu